qof ayaa wuxuu ugu yidhi waa maxay waxyaabaha ugu xanuunka badan ee nolosha. Anna waxaan ku yidhi waxyaabaha ugu xanuunka badan ee nolosha waxaa ka mid ah markii aad ka oynayso qalbiga adiga oo dareemaya xanuun haddana aad dadka u muujinayso inaad faraxsan tahay. waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu xanuunka badan ee nolosha markii aad waqtigaaga ku bixisid ilaalinta iyo daryeelka qofkaasi uu sabar u hayn dadaalkaaga kuna daryeelin sidaad adiga u daryeesho. waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu xanuunka badan ee nolosha markii aad u xiisto qofkaasi ayna suuragal ahayn inaad maqasho codkiisa oo aad aragto muuqaalkiisa. waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu xanuunka badan ee nolosha markii qofka muhiimka u ah noloshaada uu ku dhaawacayo ama uu xanuujinayo qalbigaaga adiga uga sabarya daraada jacaylka aad u qabto. waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu xanuunka badan ee nolosha markii ay garabkaaga ka baxaan ehelkaaga iyo asxaabtaada oo aad ka filanaysa inay fahmaan qalbigaaga iyo riyadaada. sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu xanuunka badan ee nolosha markii ay laba saaxiib isla jeclaadaan hal gabar oo keliya. waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu xanuunka badan ee nolosha markii aad garaacdo teelka qofka aad jeclayd oo lagaa qaban waayo daqiiqo kadib lagugu soo celiyo oo lagu dhaho walaal maxaa kugu dhacay.